hal abuurnimadu waa shaqo adag kor u qaadida qaabaynta hal abuurnimo la shaqaynta dadka isticmaalaya hal abuurkaas iyo raadinta maalgelin waxay sababaan in aad helin waqti badan oo lagu ururiyo xog iyo macluumaad muhiim ah balse haddaan la ururin jawaab celinta iyo xogta dadka isticmaalaya hal abuurkaas sidee ayay hal abuurayaashu kor ugu qaadi karaan nashqadayntooda u awoodi karaan inay la qabsadaan isbeddelka sidoo kalena u wanaajin karaan xalkooda la kulan Amara oo ah hindisaha nidaamka sifaynta biyaha nidaamkan ayaa la socda tayada biyaha sidoo kalena sifeeya waa fikir caqli badan soo maaha Amara waxay doonaysaa inaad la kulanto Fang iyo Paul Fang waa madaxa waaxda biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda ee NGO awoodiisu dhexdhexaad tahay halka Paul uu yahay khabiirkooda dhanka kormeerka qiimeynta iyo cilmi kororsiga Amara waxay ku fiican tahay nashqadaynta iyo horumarinta nidaamka biyaha halka uu Fang ku rakibi ama u xidhi nidaamyada bulshooyinka ku nool meelaha fogfog Paulna uu yahay khabiir ka shaqaynaya sidii kor loogu qaadi lahaa ee loo sii horumarin lahaa maanta waxay bilaabayaan mashruucoodii tijaabada ahaa iyagoo qabanaya kulan aqoon isweydaarsi ah marka dooduhu u leexdaan dhanka cadaymaha ay tahay in mashruuca tijaabada ahi uu dhaliyo doodu waxay noqotay mid xiiso badan leh Amara waxay had iyo jeer diiradda saaraysaa dhinaca koritaanka iyadoo adeegsanaysa cabirada sida tirada isticmaalayaasha iibka iyo heerka ku qanacsanaanta ee isticmaalaha dhanka kale Paul wuxuu doonayaa inuu arko natiijooyin ah dhanka maxsuulada iyo saamaynta bulsho iyadoo la adeegsanayo tilmaamayaal la isku raacay Amara iyo Paul iskuma waafaqsana cadaymaha uu mashruucooda tijaabada ahi u baahan yahay inuu soo saaro Fang waa mushkilad xalliye wuxuu dhawaan bartay qalabka lagu magacaabo ShineIt ee ay horumarisay Response Innovation Lab qalabkan ayaa ah mid loogu talagalay qorsheynta dabagelidda sidoo kalena ka kooban tilmaamo loo qorsheeyay hal abuurnimada dhinaca bini'aadanimada nidaamku wuxuu ku bilaabmayaa samaynta habraac kaasoo isku xidhaya qaababka cusub ee nidaamka sifaynta ee Amara iyo himiladeeda fog ee ciribtirka cudurrada biyaha ka dhasha ee ku dhaca bulshooyinka reer miyiga ah habraacan ayaa wuxuu ka caawinayaa Amara inay ka fikirto heerar badan oo natiijooyinka loo baahan yahay si ay u gaadho aragtideeda wuxuu sidoo kale Paul ka caawinayaa inuu ogaado heerarka xilliyada la soo ururinayo natiijooyinka iyo saamaynta bulsho Amara Paul iyo Fang waxay garwaaqsan yihiin baahida loo qabo in la mideeyo hababkooda iyo ururinta jawaab celinta isticmaalaha la ogaado natiijooyinka degdega ah loona diyaariyo xalka sidii loo ballaarin lahaa mashruucii tijaabada ahaa ayaa bilaabmay mashiinka cajiibka ah ee Amara ayaa lagu rakibay 5 goobiyood oo durugsan tijaabooyinku waxay muujinayaan in shaandhada sifayntu ay si joogto ah u soo saarto biyo la cabi karo natiijooyinka hordhaca ah waxay muujinayaan in kiisaska shubanka ay bilaabeen inay hoos u dhacaan iyadoo la isticmaalayo qalabka la talinta bulshada ee ay soo jeedisay ShineIt iyada iyo Paulba waxay ogaadeen in isticmaalayaashu ay codsanayaan in socodka biyaha la kordhiyo waana arrin ay tahay in laga shaqeeyo marka ay qaabaynayso oo ay nashqadaynayso wejiga xiga ee qalabkan iyagoo si wada jir ah u shaqaynaya Amara Fang iyo Paul waxay awoodeen inay siiyaan xalkooda rajada fiican leh jaaniska uu ku sii horumari karo iyagoo adeegsanaya xog sugan iyo jawaab celinta isticmaalaha si aad u heshid qalabka cadayn muujinta waxaad booqan kartaa website-ka Response Innovation Lab